متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد maanta waxaan kaga waramaynaa ballanta haw ballan oofiye. Ballanta Alle waxa uu kaga waramay aayado badan. Allah ina amray ballanta waxa uu yidhi: awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula. Ballanka oofiya, ballanku waxa uu ahaaday mid la isweydiinayo. Alle waxaa kaloo quraankiisa ku yidhi: afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakkaru ulul albaab. Cid og shayga lagu soo dejiyey inuu xaq yahay qofka og ayuu la mid yahay mid indhala. Waxa waana qaataa kuwa aqliga u saaxiibka ah, kuwa oofiya ballanka Alle weeye, aan burimin ballamaha lagu adkeeyey dhaarta. Alle waxa uu ina leeyahay ballamaha aad galaysaan oofiya. Alle waxa uu ina amrayaa inaan oofino ballamaha aan galayno. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray ballantoo laga baxo calaamadaha qofka munaafiqa ah. Waxa uu yidhi Nebigu calayhi salaatu wasalaam, markaad la ballanto ballanta uu ka baxaa. Nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, Alla uu soo ururiyaa kuwii ugu horreeyey kuwii u dambeeyey maalinta qiyaame. Ku kastoo ballanta ka baxa waxaa loo taagaa calan. Waxaa la odhanayaa waa hebel oo ballanta ka baxay. Ballanta waxaa loo qaybiyaa labo: ballanta aan Alle ka qaadnay iyo ballanta aan dadka la galno. Ballanta aan Alle ka qaadnay, Alle inagoo dhabarrada ku jirna waxa uu yidhi: alastu birabbikum qaaluu balaa. Ballanta aan Alle ka qaadnay waxa weeye, Alle waxa uu ballan ka qaaday dadka oo dhan inay caabudaan cid kalena aan la wanaajin. Ballanta labaadna waa ballanta aan dadka la galno. Alle waxa uu yidhi isagoo ina amraya: awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula. Ballanka oofiya, ballanku waxa uu ahaaday mid la isweydiinayo. Ballantu waa walaalka runta iyo cadaaladda. Ballantoo laga baxaa waa walaalka beenta. Ballantu waa runta carabkeega iyo ficilka oo wada socda. Qofka ballanta ka baxaa waxa uu waayaa runta, waxa uu noqonayaa qof ballan lahayn. Ballantoo la ilaaliyaa waxa ay leedahay faa'iidooyin. Waa sifada mu'minka. Allah ha inaga dhigo kuwo ballanta ilaaliya. Halqadeena maanta halkaa inoo joogto.